kadib markii saakay gelinkii hore banaanbaxyo isdaba joog ah looga soo horjeedo ciidamada militariga ay ka dhaceen gudaha degmada Weyn ayaa waxaa ka dhashay khasaaro xoog leh kadib markii dadkii banaanbaxayeen qaar kamid ah ay ku dhaawacmeen xilli ciidamada militariga ay isku dayeen inay xakameeyaan shacabkii banaanbaxayeen qaar kamid ah dadkii banaanbaxayeen ayaa si toos ah u weerareen hooygii gudoomiyaha degmada Weyn waxayna u geysteen burbur xoogan gudoomiyaha oo ka hadlay dhacdada saaka ka dhacday magaalada ayaa sheegay inuu aad kaga xun yahay ayna ka dambeeyaan rag siyaasiyiin ah oo jooga magaalada Baydhabo maamulka ugu sareeyo koonfur galbeed Soomaaliya ay ka warqabaan ragaasi dadka heer weyn ugu baaqa inay isdajiyaan wax dhib la ma jiro oo arrin siyaasadeed inay dhex boodaan aadan kaga xumahay aniga wax xumaatadooda ma qabo oo waxaan ahay gudoomiyihii degmada qofna dhib uma rabo marka wixii dhacay waa dhaceen gurigeyga hadaad fiiqataan idinka iskale haddaad gubtaan idinka iskale oo wax xumaata ee male wax meesha dhibaato ama ka dhacayso waxa ka dhacay Weyn waxa ka dambeeyay siyaasiyiin oo fadhigoodii yahay magaalada Baydhabo xaaladooda waa la socdaa dad badan oo og ayaa jooga magaalada Baydhabo oo mas'uuliyiin ah marka aniga waxaan ugu baaqaa dadka heer Weyn mar kasta nabad haddii oo guri la fiiqa ma ahan aniga la idil waxa idin leeyahay nabadda qaata xasiloonida ku dadaala wax siyaasadaha faraha kala baxa mid labaad aan idin sheegay aniga ciidamada aniga ma xukumo aan ma kala bedelo hay'ad gaar ah wasaaradda gaashaandhigga waaye marna ciidan ay kaysataa marna ciidan ay bedelataa wax aniga darteeda loo bedelayna ma jiraan wax aniga darteeda loo reebayna ma jiraan oo waxa idinka cabasho aad tabanaysaan aniga waa idinka ogolahay wixii dhibkiina waa dhibkaygi waxa tihiin shacabkaygi waxa tihiin walaalahaygi marka waxa idinka codsanaa siyaasiyiin dana gaar ah idinku adeeganin gaar ahaan wiilasha yaryarka waxa idin leeyahay waad ogtihiin xaalada dhib badan lagu jiraa wadanka wajiye badan uu leeyahay isdajiya waxa la idin sheegay qabiil meesha ma ka soconaayo laalaab ma ka soconaayo siyaasiyiin dana gaar ah inay idinku adeegtaan iska diida xasiloonada deegaanka lagu dadaalo waxa maanta dhacaysa mar dambe dhicin kacdoon markuu dhaxay wax gar ayaa loo kacaa laakiin siyaasi inuu ku soo waco kacdoon sameey adigana aad ku buuqdid waa laga fiican yahay waa idin jeclahay waxa tihiin shacabkeygii marka kuwa Baydhabo jooga ee ka talinaya dhibaatada Weyn waxaan leeyahay ka tanasula waxaan waa adduunyo intaad masaf raadinaysaan magaaladiina dhibaato aan la gaarsiinin oo hadda mas'uuliyiinta ugu sareysa koonfur galbeed ayaa marqaati ka ah ay u tageen waxay sameeyeen hadda waa loo jeedaa haddii gurigeyga la gubay haddii gurigeyga la dhacay haddii awlaadeyda la dhibaatay waxaa ka weyn koonfur galbeed midnimadeedii degmada Weyn midnimadeedii sidoo kale gudoomiyaha ayaa soo hadal qaaday arinta dib u heshiisiinta wuxuuna sheegay in aan la joojinayn wada hadallada u dhaxeeya odayaasha labada dhinac wax walba dhac ma loo baajinayo dib u heshiisiinta wala ma taabtaan labada beelood ee walaalaha adriirta ku dhaxmartay Weyn arrinkooda way sii soconaysaa insha Allah waana dhameynayna waxaan leenahay oo dib u heshiisiinta waa soconaysaa xasiloonida ha lagu dadaalo Cabdi Qani Maxamed Xasan Weyn